بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله رب العالمين عاوة هبين قيمة له أو تاريخي أولى سوماليلاند وحان هالكن شوغة وعاوة هالكن اسكرب تاغن مدحوينه قرنك سوماليلاند مدن مصبح عبدي iyo labadii musharax ee labada xisbiye mucaaridka ah iyo gudoomiyihii xisbiga wadani waxa iyo wasiirkii dakhiliga iyo madaxdii kale ee qaranka wasiirkii awqaafta gudoomiyaha banka dhexe halkan caawa waxa la isugu yimid waxoogaagii yaraa ee xurguftahay maalmahan la isu marinayay muxuu ahaayay warbaahinta laga maqlayay shacabka reer Soomaaliland waxaan caawa ugu bishaareynaa ummadda reer Soomaaliland iyo dadka jecel wanaagga Soomaaliland ba in caawa ay tahay habeen qiimo badan oo qasriga madaxtooyada la isugu yimid madaxweynuhu uu casuumay axsaabtii qaranka lagana heshiiyay wixii afgaran waa hore ahaa wixii dambana haddii alla yiraahdo markay dhamaato 18 May wixii ka dambeeya wixii duruufaha jiray laga wada hadlo si wanaagsan oo qarannimo ah oo ku dhisan nidaamka iyo shuruucda aynu leenahay hawlaheena aynu saa ku dhamayno marka ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa afgarabka wanaagsan ee la isku afgartay sida wanaagsan madaxweynuhu waxa uu ku mahadsan yahay martiqaadka uu sameeyay axsaabta qaranka xisbiga muxaafidka iyo xisbiyada kale labadaba waxaan goobjoog ka nahay kulankan oo laba qodob oo muhiim ah lagaga hadlay qodobka koowaad 18 May oo maalintii qaranka Soomaaliland sida loo xusayo iyo xisbi wal iyo xukuumaduba halka ay ku xusayaan taasoo madaxweynaha iyo dhinacyada oo dhan la isla gartay in maadaama madaxda xisbiyadu ay gobolada qaar u baxayaan oo ay kala qayb gali doonaan gobolada qaar halkana xaruntii dhexe xuskii caadiga ahaa dawladda xukuumaddu qaban qaabisay loo qabanayay habeennimadana xisbiyadu ay ku qabsan karaan xarunta magaalada Hargeysa habeennimada xafladda cashada ama fagaaraha ay kula ciidayaan ee ay dadkoodiyo taageerayaashooda kula ciidayaan intaa waa la isla gartay dalkuna waa nabad 18 May kadibna arrimihii adkaa ee xasaasiyadda keenay madaxweynuhu waxa uu la isla gartay in wada hadal loo dhan yahay lagu faaqido oo la lafaguro arrimahaas oo ay ugu soo horeeyaan kuwa doorashooyinku dhinac doorasho kasto ay tahayba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمان انت هلك joogtay inta saxaafada kala socoto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام kadibna sida la sheegay caaw wax la isugu yimid kulanka hordhac ah oo ah in la isweydiiyo 18 May ama 18 May sidii loo gol dabaaldegi lahaa iyo madaxweynaha oo gobasha dhigay in dabadeedna ay simaadaan xisbiyadu oo la wada hadlo laga wada hadlo arrimihii markii hore lagu kala duwanaa ahaa doorashooyinka iyo wixii la xiriira marka kulan fiican baa dhacay si wanaagsan baa la isula gartay in 18 May oo maalintii qaranka haddii la wada joogana inta wada joogta ay si wacan u qabato haddii la kala maqan yahayna in meelaha lagu kala maqan yahay lagu qabto marka waxaanu leenahay dadka bulshada reer Soomaaliland dabaaldega nabad ku dabaaldega wanaag ku dabaaldega dabadeedna insha Allah taala wala wada hadli doona khayr iyo wanaag bayna ugu dhamaan doonto maatantii bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha mas'uuliyiinta labada xusbi qaran ee wadani iyo ucid madaxda wasaaradda kale ee joogta mas'uuliyiinta xusbiga kulmiye dhammaantood salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida cali waran cadda uu sheegay dareemada jiray siyaasadda had iyo jeer dareemo way iska soo baxaan laakiin haddana dadka ay qadiyaadka qaranku ka dhaxeeya way ka wada hadlaan
caawa si niyad wanaaga ayaa la isugu yimi cali iyo raggii arrintan kaalinta ka qaateena aad bay u wanaagsan yihiin gudoomiyaha baanku aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa la isla afkartay in waxyaalaha afkaarta ah ee la kala qabo xilliga ay dhammaato 18 May in markaa la isugu yimaado markaa si qoto dheerna markaa looga wada hadlo inta ka horeeyana xaaladkaasi dhinac waliba hawshiisa uu ka soo diyaar garoobo odayaashana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddii ay caawa iyaguna halkan yimaadeen xaaladka inta kalena waa la isaga imanaya 18 May waa maalin qaran waynu weyneynaynaa odayaashu waxay ka cudur daarteen inay iyagu socdaallo gobolladii ay tagaan oo munaasabadda aanay iman karin habeennimada meelihii ay tegayaanna way u fasaxan tahay wixii intaa ka dambeeyana